shalay galinkii dambe wadahadal khadka telefoonka oo dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo ra'iisul wasaaraha Yuhuudda Benjamin Netanyahu ayaa ay dowladda aan sharciyada haysan ee Yuhuudda ku aqoonsatay Somaliland oo ku dhawaad 35 sanadood adduunka ka raadinaysay ictiraaf caalami ah. Israa'iil waxa ay si toos ah ugu dhaqaaqday aqoonsiga Somaliland dowlad madax bannaan oo ay la yeelanayso xiriir toos ah. dhinaca Somaliland marka la joogo xalay Soomaaliya waxay u ahayd habeen dheer oo u dabaaldegtay inay dhameystiran ay u jabisay xayndaamkii 34 sano ay ku raajogtay jabintiisa. laakiin marka laga soo tago muxibada iyo damaashaadka dadka reer Somaliland ugu saabsadeen aqbalka siyaasadeed ee ka yimid dhinaca Yuhuudda khatarta ku aadan arrintan iyo fursadaha ay abuuri karto ayaa ah laba siman. Somaliland halka ay ugu yimid aqoonsigani Lawradiyo kala duwan ayaa dhayda ka cadeeyay in booqashadii u horeysay ee madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ku tagay Abu Dhabi ay ahayd markii ugu horeysay ee la soo bandhigay xiriir ay Somaliland la yeelato dhinaca Israa'iil ta oo dhinaca Hargeysa ku bedelanayso aqoonsi ay ka yeesho Tel Aviv. marka madaxweyne Cirro ayaa la xaqiijiyay inuu aqbalay qorshahan way xigi doonto inuu saxiixo heshiiska Abraham Accord kadib hal sano oo uu soo jiitay heshiiskani December 26-keedii kalanimadii shalay iyo si waafi ah loo saxiixay. haddaba maxaa tan ugu jira Israa'iil heshiiskan? Israa'iil ayaa heshiiskan kale hadana waaweyn mid ka mid ah ujeedooyinka ayaa ah sida ay joogitaan ugu yeelan lahayd Babal Mandeb marin muhiim ah oo xambaarsan ganacsi iyo tartan iyo tamar caalami ah markaana muhiim u ah amniga badda cas iyo marinka Suez. tani waxa Israa'iil siinaysaa fursad ay kula socoto dhaqdhaqaaqyada caalamiga ah ee gobolka. joogitaan ay Israa'iil ku yeelato Somaliland ayaa ay sidoo kale waxay ka caawinaysaa inay xakamiso xuduudaha koonfureed ee dalalka Carabta gaar ahaan Masar, Suudaan iyo Yemen. waxay sidoo kale siinaysaa qalab cadaadis oo aan toos ahayn oo ku saabsan maraakiibta amniga iyo isu dheelitirka gobolka. sidoo kale wuxuu gudbinayaa fariin cad Israa'iil waxay soo muujinaysaa awood go'aamisa sharciyada dalalka iyadoo ay jirto aamusnaan ka timid dalalka Carabta iyo qaaradda Afrika taasoo keentay walaac dheeraad ah oo laga muujiyo ku saabsan wax door ah ugu lahayn mustaqbalka gobolka. khataraha iyo kashooyinka faa'iidooyinka aqoonsiga Somaliland. aqoonsigani wuxuu Somaliland siinayaa sharciyad gorgortan caalami ah karid ay si rasmi ah ula macaamisho dowladaha kale iyo daraasadaha hay'adaha lagu midaysan yahay ay ku sameeyaan Somaliland. waxay fududeynaysaa xiriir diblomaasiyadeed. aqoonsigu wuxuu xoojinayaa midnimada gudaha iyo kalsoonida shacabka ee hay'adaha qaranka sida la dareemay 20 saacadood u dambeysay dhibaatooyinka ka dhalan kara ama ka dhashayba. Somaliland ayaa wajahaysana cadad caalami ah oo ku aadan aqoonsigan ay ka heshay Israa'iil. jubdii horeba dowladaha Masar, Turkiga iyo Djibouti ayaa si aan kala labaynayn ugu hor yimid heshiiskan. midowga Afrika, ururka Islaamka, jaamacadda Carabta, Sacuudiga iyo badi dalalka Islaamka ayaa ka hor yimid taasoo kordhinaysa cadaadiska ay Somaliland kala kulmayso dowladaha adduunka. khatarta amnigu waa sareysaa dhinaca argagixisada iyo xuutiyiinta. waxaa halis loogu jiraa in qadiyada diineed ee Falastiin lagu guuleystay shacabka gudaha lagu bixiyo. guntiga gabagabadiina aqoonsiga Somaliland ay ka heshay Israa'iil waa fursad iyo khatar isbarkan oo u baahan deganaan diblomaasiyadeed, fahan iyo aragti lagu wajaho.